السلام عليكم maxaa naga hortaagan inaan guuleysano su'aashan ma lahan jawaab qof kasta oo ku qancayo waayo qof kasta oo anaga naga mid ahi waxba ka hortaagan guushiisa oo uu qof kale kaga duwan yahay taale qof baa waxa laga yaabaa inay guushiisa ay ka hortaagan yihiin asxaabta uu la socdo ama uu leeyahay balwad xun sida qaadka sigaarka tubaakada iyo xashiishka qof kasta waa inuu waqti la qaataa naftiisa oo uu isweydiiyaa waxyaabaha ka hortaagan inuu guuleysto marka aad isweydiiso su'aalahaas waxaad jawaab u helaysaa waxyaabaha ka hortaagan inaad guusha gaadho waa inaad qortaa dhammaan waxyaabaha ka hortaagan inaad guusha gaadho ayagoo taxan kadibna waa inaad ku dadaashaa sidii aad u xalin lahayd caqabadahaas tusaale caqabadaha ka hortaagan guusha waa adigoo saaxiib la ah asxaabta xunxun iyo adigoo isticmaala balwadda iyo adiga oo aan u baraarugsanayn inaad guul gaadho markaa kadib waa inaad xalisaa dhammaan caqabadahaas haddii aad asxaab la ahayd asxaabta xunxun waa inaad u beddeshaa asxaab fiican haddii aad tahay qof daris la ah maandooriyaasha noocyadiisa kala duwan waa inaad joojisaa isticmaalkooda sidoo kale haddii aadan u diyaarsanayn inaad guul gaadho waa inaad u diyaargarowdaa maskax ahaan iyo jir ahaanba inaad gaadho guul waa rajaynayaa inaad wax badan aad ka faa'iiday mawduucan fadlan haddii aad channelka ku cusub tahay subscribe saar si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aynu soo gelinno haddii aad horay noogu xirneedna leegdhe siina shargaree si ay u gaaraan saaxiibo badan intaa iyo inta aynu isaga imanayno kulan dambe waxaan idinkaga tegayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh